wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho rasmi ah oo 3 maalin qaadatay ku yimid magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka Soomaaliya u fadhiya ururka waxbarashada ee jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka Isaam Xuseen Jaamac, la taliyaha wasiirka waxbarashada Ali Sheikh Ahmed, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Ali, gudoomiyaha jaamacadda ummadda Maxamed Jimcaale, agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada Khadija Jimcaale iyo xoghaynta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Maria Zakariya Ahmed. wafdiga ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay oo kulamada ku heliyay siyahayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar Mukhtaar Cali Yuusuf iyo xogayaha saddexaad ee safaaradda Maxamed Badar Aadan Nuur. wafdiga ayaa waxa ay la kulmeen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Qatar Maxamed Xamaadi iyo madaxda wasaaradda, waxayna ka wada hadleen dardargelinta heshiiskii horey ay labada dal u saxeexdeen sanadii 2015 kaasi oo ku saabsan waxbarashada, tacliinta sare iyo cilmi baarista, iyadoona hadda lagu kordhiyay farsamada. wafdiga Soomaaliya ayaa soo bandhigay mashaariic ku saabsan dhinaca horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare kuwaasi ay doonayaan in laga caawiyo, waxaana labada dhinac isku afgarteen dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen. dhinaca kale, wafdiga uu hogaaminayay wasiirka waxbarashada ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee sanduuqa Qatar ee horumarinta Khalifa Jazim Al-Kuwari iyo madaxa hay'adda Qatar Khayriya Yusuf Al-Kawari. sidoo kalena waxay booqasho ku tageen jaamacadda Hamad bin Khalifa. waa kan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka waramaya. waxaan ku joognay booqasho maalmahan dalka Qatar oo aan saaxiibahanahay. waxaan ka helnay casuumaad rasmi ah. waxaan la kulanay shalay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. waxaa kale oo aan la kulnay madaxa hay'adda Qatar Fund for Development. marka labada kulanba waxay ahaayeen kulan aad u fiican. markii ugu horeysay waxaan tagnay wasaaradda, waxaan wada hadal aad u dheer aan la yeelanay wasiirka waxbarashada kaasoo aan si fiican xogta iskugu dhiibnay Qatar iyo howlaheeda iyo sida ay hore ugu mareen waxbarashadooda. anagana waxaan u sheegnay heerka aan taaganahay iyo dadaalka aan wadnay inaan rabno inaan dalka Soomaaliya aan waxbarashadiisa meer sare geyno. muhiimadda ugu weyn waxay ahayd safarkeen inaan aan si fiican uga wada hadalno heshiis waxbarasho oo labada dal ay wada saxiixdeen hadda ka hor sidii aan fulintiisii aan uga tashan lahayn. marka taasina si fiican ayaan isku la garanay. waxaan u sheegnay in waxyaabaha aan dhaxalgalka ahayn aysan hadda anaga faa'iido noo lahayn, khaasatan aan anaga rabno hadda inaan ku soconno aan u gudbayno marxalad oo horumarineed oo aan ka baxayno marxaladii ma arkaysa bini'aadnimada. marka taasna hoosta ay ka xariiqeen oo mashaariicda aan rabno inaan wada galno ama dalka aan ku sii kaxayno ay tahay mashaariicda horumarinta oo wax dhaxalgal ah keenayo. maanta waxaan soo booqday jaamacadda Hamad bin Khalifa oo ayadana si fiican aan usoo sheekaysanay, aan isla garanay qaabkii aan isugu xiri lahayn jaamacadaha dalka iyo jaamacadda waa jaamacad muhiim ah oo ay fanka ugu weyn ay siiso Qatar Foundation oo ah foundation boqortooyada dalka ay ka dambayso. marka ayagana faa'iidooyin fiican ayaan isla gaarnay. waxaa kaloo aan kulanay madaxda ugu sareysa hay'adda Qatar Khayriya ama Qatar Charity oo iyagana Soomaaliya mashaariic waaweyn oo khaasatan kuwan livelihoodka oo lagu caawinayo dadka masaakiinta aad u tabarta daran aan meesha isku aragnay. kuwaas ayagana aan mahadnaqnay. waxa ay sameynayaan wax fiican ay tahay inay sii wadaan dadaalkoodana aan jecelnahay. aan isla gaarin ayagana inaan ma arkaysaa samaysano اتفاق
oo ama heshiis wada shaqayn ama isfahan oo Qatar Charity wasaaradda aan doonayn inaan wada shaqeyno. dawladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan oo soo jireen, waxaana dawladda Qatar ay dardar gelisay mashaariicaha kala duwan ee ay ka fulinayso gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona dhawaan uu booqday wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee sanduuqa Qatar ee horumarinta. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka magaalada Dooxa.